Mid ka mid ah raggii ka toobad keenay xumaanta ayaa waxa uu fariin u soo qoray sheekh lagu magacaabo Khalid al-Rashid, isagoo uga waramayo sanado badan oo uu ku socday waddadaasi halaaga ah. Waxa uu hadalkiisa ku bilaabay sidaan: "Ma aqaano meel aan ka bilaabo hadalka iyo si aan u cabiro qisada. Maanta waxaan ahay 26 jir. Aniga ayaa ugu weyn walaalahayga. Qoyskayguna waa mid aad faqiir u ah. Asxaabtayduna waa kuwa aan tukan salaada, soonkana aan soomin. Nolosheenna oo dhan waxay ahayd dhafar iyo khamri iyo daroogo. 7 sano ayaan ku jirnay xaaladaas, haddana waxaan qaadnay jid ka sii xun midkaas." Mid ka mid ah asxaabta ayaa waxa uu keenay fikrad ah inaan u safarno waddamada gaalada annaga oo raadinayno raaxo iyo isbeddel. Sidii ayaan samaynay, balse fiicnaan lahayda inaynaan samayn sidaas. Waddamadaasi waxa aan ku soo baranay zinada iyo qaybaheeda kala duwan, iyo heesaha iyo burcadnimada. Safaradaas waxa ay naga qaadan jireen bilooyin fara badan. Marka ay lacagta naga dhammaatana, ehelkeena ayaan soo wici jirnay innaga oo ka dalbanayno inayna siiyaan lacag aan ku soo laabanno. Marka lacagta aan helnana, waxaan kordhisan jirnay muddada safarka. Qaabkaas tugnimada ah ayuu mid walba oo inaga mid ah ehelkiisa lacagta uga qaadi jiray. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa aan kiraysanay gaari. Waxaan aadnay mid ka mid ah goobaha lagu tunto oo khamriga iyo xumaan walba ay taalo. Innaga oo fadhino oo galaasyada khamriga ahna isku dhiibayno, ayuu mid ka mid ah asxaabteena waxa uu yiri, "Meel dhow ayaan aadayaa, si degdeg ahna waan ku soo laabanayaa." Wuxuu baxay isagoo saqraan ah. Waqti badan ayaa ka soo wareegatay, dibna uma uusan soo laaban. Kadibna innaga ayaa raadinay, waxaana u tagnay isaga oo gaari kala soo dhacay meel dheer, si xunna u dhintay. Geeridiisa ayaan si aad ah uga murugoonay, waxaana dib ugu soo laabanay guryaheenna innaga oo murugsan. Bilooyin kadibna waxa aan ku laabanay xumaantii hore. Yaa Allah, qalbiyadeennu adaga oo naxariistaadu badana. Ma haysanin hanti iyo mushaar bille ah. Xilliyada qaar, qoyskayga ayaa waxa aan dusha u saari jiray deymo, sababtoo ah aniga ayaa bixin jiray xilliyada qaar lacagta ku baxayso safarka aniga iyo asxaabtayda, iyadoo qaarkood ay iga hanti badnaayeen. Waxaan u malayn jiray sidaas inay tahay deeqsinimo iyo qalbi furnaan. Waxa igu batay deymihii, asxaabtayduna way iga tageen heer ay safri jireen iyagoon ii sheegin. Waxaan ogaaday markaas inay ahaayeen saaxiibo danaystayaal ah. Markaasna waxa aan samaystay saaxiibo kale oo aan kuwii hore wax dhaamin. Waxaan aruuriyay hanti, aniga iyo asxaabtayda iyo in adeerkay ayaa u safarnay markaasi waddan kale oo lagu yaqaanay xumaanta. Kadib 2 maalin markii aan tagnay meesha, in adeerkay ayaa waxa uu dhahay, "Waan laabanayaa aniga." Sababta ayaan weydiiyey, wuxuuna i yiri, "Riyo ayaa waxa aan ku arkay dadka waddankan ku nool oo dab lagu shidaayo. Waxaana ii yimid nin wato dhar cad, wuxuuna i yiri, 'Laabo inta aadan guban.' In adeerkay iyo anigana waan laabanay. Guriga ayaan joogay anigoo hanti la'aan iyo asxaab la'aan ah. Waxa ay qabtay murug iyo walwal uu Alle xaalkeeda og yahay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa ii timid hooyaday iyadoo ooynayso, waxayna igu tiri, "Maxaadan u tukanaynin? Maxaadan ugu laabanaynin xagga Alle?" Waxay i siisay cajal, waxayna igu dhaarisay inaan dhagaysto. Waxa aan dhagaystay cajalkii, waxa aan dareemay sida inuu ila hadlayo aniga. Cajalka waxa uu ka hadlayay dadka ku maashooda xumaanta iyo raadka ay leeyihiin asxaabta xun. Waan ooyay, si aad ah ayaan u ooyay. Waxa aan go'aansaday inaan toobad keeno. Nafteyda ayaan xisaabiyey. Ninka soo qoray fariinta waxa uu yiri, "Sheekhow, ma taqaanaa cajalka ii siisay hooyaday ninka ka hadlayay? Adiga ayuu ahaa, aadna waan kuu jeclahay." Cajalado badan kadib oo hooyaday ee i siisay, maanta waa i kan, aniga oo ku soo qorayo fariintayda, anigoo ognayo hooyadayna ay ku inayso agtayda iyada oo faraxsan. Noloshayda cusub haddii aan kaaga sheekeeyana, towbadayda kadib,
waxaan u dhexeeyaa wanaagga. Sidoo kale waxaan helay shaqo muddo badan oo aan shaqo la'aan ahaa kadib. Xitaa ma haysto shahaado, balse Alle fadligiis waxa uu siiyaa cidda uu doono. Mid ka mid ah guryaha Allena waxa aan ka ahay mu'adin. Maalin walba dhowr mar ayaan ku celceliyaa Allahu Akbar, Allahu Akbar, laa ilaaha ila Allah. Asxaabtaydii hore waxaan ugu duceeyaa hanuunka. Waxa aan rajaynayaa dadka caqliga leh inay ku waano qaataan qisadayda.